Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Saasi Media iyo RHCB. Anigoo Faadima waxaa idinla socodsiinayaa qaybtanadii lixaad ee shaacinta khuraafaadka COVID-19. Dr. Shaafici, ma loo isticmaali karaa antibiyootiga daaweynta ama kahortagga cudurka COVID-19? Antibiyootika waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo bacteria. COVID-19 waxaa sababa virus oo la dhahayo coronavirus. Marka ma loo qaadan karo antibiyootika in looga hortago COVID-19 ama lagu daaweeyo COVID-19. Waxaa jira dad oo isbitaalka la jiifinayo oo aad u jiran oo isla markaasna waxa qabo infection oo bacteria laga qaado iyo COVID-19. Marka dadkaas waxaa la siiyaa antibiyootika iyagoo COVID-19 qabo. Dr. Shaafici, waad ku mahadsan tahay su'aalaha noo bayaanisay oo aad nooga jawaabtay maantay. Bulshadana waxaan u sheegaynaa dhammaantiin inaad dadaajiin oo taxadartiin oo aad markasta maskigiina xiratiin, gacmaha iska dhaqdiin, meelaha dadku isugu imaado kulanka la yareeyo, iyo haddii aad xanuunsan tahay inaad gurigaaga iska joogtid. Sidaa iyo nabadgelyo iyo kulan dambe oo wacan.